kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu doorkoronaya waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo ku kulmay magaalada Riyadh si ay u adkeeyaan xiriirkooda Ethiopia oo sheegtay in agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee Tedros uu u ololeeyo ururgiiso ka ay ku wado Tigray xukumaysan oo isku dayay in ay mindi ku dilaan madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee Mali Assimi Goïta masjid ku yaala caasimadda Bamako khilaaf saameyn xun yeeshay oo ka dhex taagan talisyada ciidanka xoogga iyo AMISOM daawadadan cusubta nagu soo biir subscribe saar gambalaalkana fursiyad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee halkan aan idin soo dhigno waa maalinimo Arbacada taariikhdu ay ku beegan tahay 22 July 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa magaalada Gaalkacyo kula tukaday salaadii ciid Carafo qaybaha kala duwan bulshada ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo maalintii shalay madaxweynaha ayaa salaada kadib hambaliyada Ciidul Adha u diray dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin isagoo si gaar ah ugu hambaliyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee howlgallada ka wada deegaanada Galmudug sidoo kale madaxweyne Qoorqoor ayaa u mahadceliyay maamulka Puntland oo uu sheegay in ay iskaashi iyo isgarab istaag u muujisay dawladda iyo shacabka Galmudug waxaana uu ugu baaqay Puntland in ay si laba jibaaraan iskaashiga amniga ay la dagaalanka argagixisada dhanka kale Master Qoorqoor ayaa ugu baaqay dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya inay si isku mid ah uga qayb noqdaan howlgallada lagu soo afjarayo kooxaha nabadiidka ah kuwaas oo ula jeedo kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh ugu dambeyn Qoorqoor ayaa tilmaamay in Galmudug ay dhinaca kale ay diyaar u tahay qabashada doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynuhu ayaa hoosta ka xariiqay in Galmudug muddo dheer ay geed fadhi u ahayd dadaalada lagu doonayay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas daraadeedna ay laga maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyada iyo habraacyadii arrimaha doorashooyinka ee dalka hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa isniintii ku kulmay magaalada Riyadh si ay u adkeeyaan xiriirkooda kadib markii dhawaan labada dawladood ay hadallo hawada isu mariyeen iyaga oo ku muransan qiimaha shidaalka ee caalamka walaalkay Mohammed bin Salman iyo aniga waxaan ka wada hadalnay hababka lagu xoojin karo xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga muhiimka ah ee labadana dal waxaa sidaas yiri dhaxal sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed kadib kulan uu la yeeshay dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman saaxiibtinimada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya waxay weli tahay mid xoogan oo barwaaqo ah ayuu yiri bin Zayed oo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wakaalada wararka Sacuudiga SBA ayaa dhankeedana warisay in Mohammed bin Salman uu garoonka ku soo dhaweeyay Mohammed bin Zayed labada hogaamiyana ay yeesheen wada hadallo miradhal ah labadan hogaamiye ayaa muddo loo arkayay lamaanaha awoodda gobolka waxayna ku caan yihiin xarfaha magacyadooda loo soo gaabiyay ee MBZ iyo MBS si yeeshee kulan la'aan jirtay muddooyinkii dambe ayaa sare u qaaday xan ku saabsan in xiriirkooda uu dabcay muran horaantii bishan ka dhashay heshiis ay dalalka shidaalka ee soo saara ee OPEC qorsheynayeen ayaa sidoo kale khilaaf ka dhex abuuray labada dal oo laba wado kala raacay loolan ku dhisan dhaqaale ayaa xudun u ah khilaafka iyadoo dalalka khaliijka ay isku dayayaan in ay ka faa'iideystaan kaydkooda shidaalka xilli ay wajahayaan in dunida mar aan dheereen ay ka kaaftoon doonto shidaalka intiisa badan Imaaraadka Carabta heshiiska OPEC ku tilmaamay mid cadaalad darro ah iyada oo kula loolantay Sacuudiga oo ah dalka dhoofiya shidaalka ugu badan ee caalamka si kastaba OPEC ayaa sheegtay ayaa heshiis gaaraya sidoo kale OPEC si kastaba OPEC ayaa heshiis gaaray haddii kaasi oo dhigaya in si tartiib ah sare loogu qaado soo saarka shidaalka caalamka laga bilaabo Agoosto wakaalada wararka Ethiopia ayaa dhawaan daawacday warbixin ay ugu hadlayso agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom kaasoo ay ku eedeysay in uu ololeeyo ururo argagixiso
oo ay ula jeedo Tigray People's Liberation Front TPLF. wakaaladda ayaa sheegtay in Tedros bishii la soo dhaafay uu qoray fariimo uu taageero ugu muujinayo ururka TPLF isla markaana uu ku dhaliilayo xukuumadda federaalka. waxa ay si gaar ah uga eedeysay agaasimaha guud in uu u dabaaldegay ku soo laabashadii TPLF ee caasimadda Mekelle. saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay warar been abuur ah oo sheegayay in Dr. Tedros uu ka baxay Itoobiyaanimada. dadka faafinaya wararkaas beenta ah ayaa qaatay waraysi ay BBC la yeelatay nin dhakhtar ah oo lagu magacaabo Tedros Tafera, kaasoo sanadkii hore u waramay wariye Andrew Hardin xilli uu ku sugnaa xero qaxooti oo ku taal Suudaan. hadda kama fikirayo in aan Itoobiyaan ahay, marka ma sii wadan doono baasaboorka Itoobiya, ayuu xilligaasi sheegay Tedros. magaca Tedros ayaa mararka qaar loo qoraa Tedros. waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray heshiiskii Addis Ababa ay 2013 ku gaareen dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasoo loogu aqoonsaday hogaamiyaha Jubbaland markii uu bilowday duulaankii ay dowladda Itoobiya ku qaaday gobolka Tigray. waxa uu Tedros beeniyey in uu u iibiyey xoogagga TPLF, balse xukuumadda Addis Ababa ayaa weli diiradda ku haysa mas'uulka asal ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Tigray. rag aysan ayaa isku dayay in ay mindi ku dilaan madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee Mali Assimi Goïta masjid ku yaal caasimadda Bamako. taliya Goïta ayaa ka qayb galayay munaasabadda Ciidul Adha isaga oo ku tukanayay masjidka weyn. mas'uuliyiinta ayaa sheegay in raggii weerarka soo qaaday la qabtay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP, ayna tiradoodu ahayd 2. ilaa hadda ma cadda in Jenaraal Goïta oo uu hogaaminayay afgembi military bishii August ee la soo dhaafay ka dhacay dalkaas uu dhaawacmay iyo in kale. wasiirka arrimaha diinta Mamadou Kone ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in nin uu isku dayay in uu madaxweynaha ku dilo mindi kadib afgembigii sanadkii hore. hogaamiyahan militariga ah ayaa doonayay in hogaamiyo dowladdan ku-meelgaarka ah ee qaabinayso doorasho in ay dalkaas ugu dhacdo muddo 18 bilood ah, isla markaana xilkuna dib loogu celiyo rayidka. ururka ECOWAS ee heshiiskaasi markii hore garwadeen ka ahaa ayaa weli wuxuu ku doodayaa in xukunka shacabka lagu soo celiyo, balse gaashaanle dhexe Assimi Goïta ayaa ah ninka ugu awoodda badan dalkan aan xasiloonida lahayn ee ku yaala galbeedka Afrika. khilaaf xoog leh oo soo kala dhexgalay saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa wiiqay howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ka socday gobollo uu ugu horeeyo Shabeellada Dhexe. barnaamijka galka baarista ee ka baxa VOA ayaa soo bandhigay in khilaafkaas uu qarxay markii ciidanka xoogga dalka ay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. sida uu barnaamijkan u sheegay sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan Shabeellada Dhexe, khilaafkan waxa uu qarxay markii ay ciidanka xoogga Soomaaliya bilaabeen howlgallo aan lagu wargelin AMISOM, kaas oo uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odawaye Yuusuf Raage. intaas kadib waxaa la sheegay in uu qarxay khilaaf iyo kala aragti duwanaansho xoog leh oo u dhexeeya saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, gaar ahaan kuwa Burundi oo ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigay xogta ku qornayd warqado ay isdhaafsadeen taliyahan SNA iyo AMISOM, kuwaas oo taliska militariga Soomaaliya uu ugu dacwoonayo ciidamada Burundi ee ku sugan Shabeellada Dhexe. taliska militariga Soomaaliya ayaa ciidanka Burundi ku eedeeyay in ay Al-Shabaab madaalinayaan oo caajis badan uu ku jiro howlgalladan naadirka ah oo ay sameeyaan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay farxadda ciidda Carafo la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhiirigeliyay sida nafurnimada leh ee ugu taagan yihiin difaaca dalkooda iyo ilaalinta karaamada dadkooda. Farmaajo ayaa sheegay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee u istaagay xureynta dalka iyo ciribtirka arxanlayaasha argagixisada Al-Shabaab ay taariikhdu xusi doonto, maadaama ay u soo dhabar adeegayaan
duruufo adag si ay u sameeto bixiyaan dalkooda. waa sida hadalka u dhigaya. waxaad tihiin ciidan qaran oo u taagan difaaca dalka, dib u soo noolayn dowladnimada iyo ilaalinta karaamada dadka Soomaaliyeed. waxaan idinku hambaliyeynayaa munaasabadda Ciid Carafo iyo waajibka qaran ee aad gudanaysaan. farxad gaar ah ayay ii tahay in aan munaasabadaha noocan oo kale ah idinla qaato, maadaama aad tihiin geesiyaasha aan ku faano, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ayaa bogaadiyey howlgallada socda ee ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab, iyada oo geesiyaasha xoogga dalka ay guulo waaweyn ka soo hooyeen howlgallada ay ka wadaan deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan kooxda Al-Shabaab. oo sida hadalka u dhigay. ugu dambeyntii waxaa la soo saaray habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. shuruudaha warqadda anshaxa musharaxiinta u tartami doonta aqalka sare iyo akaanka bangi uu musharaxu ku shubayo khidmada lacageed ee $20,000 ah. qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri guddigu waxa uu la wadaagaya codsi qoraal ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay u soo sharaxaan musharaxiinta aqalka sare ugu yaraan 2 musharax kursi kasta si waafaqsan shuruudaha xubinnimada golaha aqalka sare. sidoo kale guddiga ayaa qoraalkan ku sheegay in uu qabanayo warqadda magacaabista musharaxiinta aqalka sare iyagoo ku hubinaya shuruudaha musharaxiinta, islamarkaana waxay xaqiijinaya matalaadda qoondada haweenka 30%. sida lagu shaaciyey qoraalka guddiga, shuruudaha laga doonayo musharaxiinta aqalka sare ayaa kala ah qodobadan soo socda: 1. in uu yahay muwaadin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2. in dhimirkiisu dhan yahay. 3. in da'diisu aysan ka yaran 25 sano. 4. in aan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay. 5. inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta. 6. in uusan ka tirsaneyn ama wax xiriir ah la lahayn kooxda argagixisada ah. 7. in uu haysto warqadda dembi la'aanta ee hay'adda dembi baarista CID maamul goboleed ama mid federaal. musharax kasta oo tartamaya golaha aqalka sare waa in uu bixiyaa lacagta isdiiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bangiga ee guddiga doorashooyinka. 1. lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare waxay noqonaysaa $20,000. musharaxiinta golaha shacabka $10,000. 2. lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta dib looma soo celinayo. taasaynu ku saafbeerina warkaad kala socoteen Samarayb TV. inta warkan war lamdan kulmo doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.